طريق الله أحياني من الأحزان أنجاني ويأخذني إلى عفو وفوز بعد خسران. بسم الله كسو دواad ogbaad kuuk iyo maanta adeegeennii aan soo adeeganay oo maaragtay bishii ama mar ama laba jeer aan soo adeegano maanta halkan waxaa noo taalla qudaar kala duwan baa noo taalla oo noocyo fara badan ah. qudaartu iyada la faaniyey oo dhakhaatiirtu dhaheen vitamins baa laga helaa, ama veg ha ahaato, vegetable ha ahaato, ama fruit ha ahaato, labadaba waa waxyaalaha la cuno. marka hore waa wada sheegayaa, guud ahaan baa u sheegayaa. kan qajaar weeye, midkan qajaar weeye, tan basal weeye, midan waa kaarooto, tan waa kan waxa la yiraahdaa sukuuni af Soomaali hadda markuu garanayo, kan baamiye weeye, midka kan waxa weeyaan barbarooni, kan waa cambaheennii keena Soomaaliya ka fiicnaaba, midkan waa cabbage weeye, midka kan waa broccoli, midka kanna waxa la yiraahdaa cassava baa la dhahaa, midka kan cassava la yiraahdaa oo waa wax aad u fitamiin badan isaguna. kan waa cabbage-kan kala go'an, kabsaradeennii. geedkan waa geed cagaaran, hadda magaciisa iga maqan yahay, laakiin dhiigu sifeeya aroortii markay tahay baa dadku waxay ku shiitaan carrot ku shiitaan. waa sii wadanaynaa marka wax yar oo halkaana galay. midka kan waa ka idin sheegi lahaa, subaxii aroortii baa la shiitaa, kabsarada u egyahay laakiin uma eka soo ma jeedaan. waa nooc kale. beetroot weeye kan, midkan beetroot baa la dhahaa, kan baashan weeye, iyo liinteennii. tan digirtan dhuudhuuban iyadana waa digir dhuudhuuban oo aad iyo aad iyadana fitamiin u leh oo lagu darsado qudaarta ama qadada ama bariiska baa lagu dalacdaa. afakaadho waa tanaa, iyadana afakaadhadan waa tanaa. midda tan waa huruud weeye, marka way qoyan tahay, saasay u qoyan tahay oo guduudka midabkaasay leedahay, aad bay u fiican tahay. kan waa sanjabiisheenna, iyaduna waa sanjabiil. waxaan u qudaaro ilaahay in ku deeqo weeye. salarkeennii oo isagana waa kanaa, alxamdulilah. midka kan waa midka broccoliga aan idiin sheegayey, broccoli weeye, fitamiinu leeyahay isaga iyo digirta. haddaa inta isku karsatay habeenkii casho aad ka dhigatid iyo 2 xabo basala, waa wax aad u fiican weeye, ama quraac aad ku samaysatid. dadka dhigoodu yar yahay ama raba inay calooshooda bixiyaan, kan hadda beetroot baa la yiraahdaa. aroortii isaga iyo waxaa la isku 1 xabo kana iyo tan baa la isku waxaynay. anoo soo garanayna waa idin tusi doonaa insha allah juuskaas. haddaa isku darsatay kan labadan, haddaa isku shiidatid iyo xabad liin dhanaan ah, marka isku shiidatid xabadan liin dhanaanta ah, calooshaada waxa ku jira kulli waa soo baxayaan, banaanka soo baxayaan. alxamdulilah. kan waxa weeyaan baamiyaheennii, waddankeennana waa ka baxaa, halka kanna wuu ka baxaa labadaba. dadka sokorta qaba aad iyo aad buu daawo ugu yahay. afkaasaad ka jaraysaa iyo dabada, 4 xabaa waxaa ku ridaysaa galaas, habeenkiiba uga seexanaysaa. subaxii haddaa cabtid sokortaada 1 month awoodid, sokortaada dhan waxay noqotay, dad waaba ka ba'daba, dadna level hoose bay noqotay oo saasay u baaba'day. kan sakuuni baa la yiraahdaa, isaga iyo qajaarka isu egyihiin, laakiin waa 2 nooc. kan waa la kariyaa, cagaarka digirtaas baa lagu kariyaa, ama waxyaalo kale oo cagaar ah iyo kuwaana la isku kariyaa, fitamiinuu leeyahay. dadka miisaanka iska ridaya, hal qajaara ama haafkiisa baa ku filan, iyo salarkaas inay maxaan ku rahdaa ay ka dhigaan saxan adigu ay markaas ay ku qadayn karaan, ay ka samaystaan. aad buu u fiican yahay, u caafimaad badan yahay. anoo ka samaynaya maxaan ku rahdaa juice, insha allah waa soo gelin doonaa. hadda cabbage-ka kan dhowr nooc baan rabaa inaan u sameeyo haddii ilaahay idmo, mar kalluun lagu darayo, mar ukun lagu darayo, waa soo gelin doonaa insha allah haddii ilaahay idmo. tan waa liin weeye, midda tan liin beelmadeennii weeye, caadiga ahayd. intaan kale iyadana la fiiqana Kenya waa taalaa. dadka ulcers-ka qaba ama calooshoodu ay nabraha leedahay ama dhahay gaas ba ay haya, laftarkeedana u fiican. subaxii haddii qofku 1 koob oo tan uu ka cabo, dadka qaba sokorta in yar malab haddii ku darsadaan oo subaxii ay cabaan, calooshooda dhan way caafimaadaysaa. iyada tan iyo hadda sanjabiishaas oo la shiiday, haddaa inta isku miirato aad cuntid, calooshaada nabraha dhan waa ka ba'ayaan. subax kasta 1 koob aad cabtid, caafimaad fara badan baa ku jira. nabrahana laftarkeeda baabi'isa, iyo gaaska kan la yiraahdo H pyloriga aad bay ugu fiican tahay liinta tan oo lagu daray, ama ku dartay liin dhanaan iyo jab huruud ah iyo jab sanjabiil aad ku dartid, aad iyo aad bay kugu fiican tahay. ku soo dhawaada ogbaad cooking. alxamdulilah, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.